سيدنا محمد دمان صحافته iyo inta muqalbeeyaniga arki doonto waxa la salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaamka bacdi runtii waxaan taasiinay dhammaan cid kasta wax ku noqotay mudaharaadkii maalmihii u dambeeyay ka dhacay qaranka waxaan si gaar ah uga taasiinaynaa ama u xusaynaa ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan nabadilaalayaashii dadkii mudaharaadii oo runtii tacaddi xoog لوجو بيستي مظاهرات هذه أربعة وحنا كنت حسبي جا وضني وها صدق حسبي كلهم كي قدم بي كدعي وصار داري ما هبلها كد البنية اللي بدأ حسبي كد البنية إني مظاهراتان أروتي وكم قرتي وكم قرتي وحويا إنانو ترالك هاي إنه مظاهرات سلمية إنه كدعة وحياة هاي مسؤولية الرب كتمي إنه يبوحيان حسب النماء يبوسيشن كاي قرن كلا هاي إنه يبوحيان واحد راميسا حسبي إنه يحيب سيبته إنه قرن كان كقادم يوحيالو سوفي هدي أينو أرقنو iyadoo la sheegayo ama la xusayo xirsi waxa ogaatay inuu yahay gudoomiyaha xisbiga waddan erana waxa gudoomiyihii hore xisbiga waddan xisbigii waddan wuxuu qaybsamay laba wuxuu noqday in xisbi ka dhex xirsi ka dhex iyo in laga xanqaso taas waxay keentay inuu ayidi waayo wixii ka soo baxay kulankii wasaaradda arrimaha gudaha uga qabsoomay gudoomiye Faysal iyo mas'uuliyiintii kale halka ku shiray maadaama ay soo igmadeen Faysal inay aqbalaan wixii lagu go'aamiyay in mudaharaadadaas ay ku qabsamaan runtii shalay halkan waxa ka dhacay ama halkan taagnaa xildhibaanadii qaar ka mid ah golaha wakiilada waxaan leeyahay culimadu waxay ahaayeen lafdabartii qarankan qaybta ka ahaa ama qaybta ugu muhiimsan ka ahaa in qaranka iyaga leedahay waxaynu ognahay Sheekh Ibrahim Sheekh Madar doorkii uu ku lahaa qarandhiska waxaynu kala ognahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Jawhar doorkii uu ku lahaa qarandhiska maanta odhan mayno culimadu door kama yahayn in qaranka halkan soo gaaro waan ka xumahay in golaha dhexdiisa lagu aflagaadeeyo culimadii qaranka waxaan kaloo arkayn xildhibaano haldoor u ahaa oo horjoogayaal u ahaa 46 mudane ee gudbiyay maxkamadda sare u gudbiyay in ururada la soo oo mar labaad afkooda ku dafiray waana ka xumahay runtii in siyaasi daaya oo soo koraya dictator la carableey aad iyo aad baan ku tuuray waxaana leeyahay walaaladay dhacday dubyaan golaha wakiilada taagan yahay inuu ka hadlo ama ka doodo wixii shuruuc iyo qawaaniin qaranka ku taabageli lahaa golaha wakiiladu ma meel qof ku soo golaha wakiiladu ma meel qof ku difaaco golaha wakiiladu waxa weeyaan waxay ummaddu noo soo dooratay in daayarta ugu jiheeyo shuruuc iyo qawaaniin ay qarankooda kula tasqaadaan annagu waxaan nahay حد الدجيال حد الدجيال بام وحن كشقينا إن قرن كانوا يشوا قوانين يشرور لجو كلام أرنتي حر فردين والحكام دي وحي قولها نصوصها وحنا نشعلها إلا تهبق اليو لقد أيو بتشوفين تين لقد أيو أرنتي قف كستون لقامدي وحليه هن مدحوي قف كستو سياسة قرن كقريب كهجرة ومستقبل مركز تكوهميو إنه مرة نقدم الحكي وحلي ورالدي أما حلبان هذا ولها مركز كعبارية مسؤولية القرن الحوينه وهالكيو سريسي ومطلب وصحنا لكن في القادين مين وتوسنينا لكنه هالشيء مين وحليه
golahu yaanu noqonin golihii madaxweynaha ama head of state halkan uga hanjabi lahaa waxaan leenahay walaalayaal aynu qaranka ka shaqayno sidii aynu uga badbaadin lahayn inuu halkii uu ka yimi inuu ku noqdo inaynu noqonno kuwii qarankan ku tanaado waa laynoo hanweyn yahay waa laynoo hanweynaa hanweynaydeenni waxaan leeyahay soo celin maalin kasta halkanaynu ka yooyootana runtii shacabka ayay ku tahay niyad jab aad iyo aad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi